وعاصمتي كدريسان ودريسان دمان مامور goboleedyada Soomaaliya iyo madaxtooyada qaranka Soomaaliya ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay tahay dalka inaan u baahanahay election sax ah inuu ka dhaco oo xalaal ma jirayso kursiga Soomaaliya qof kaligiis gaar u leh ama qola afduubi kartaa ma jirayso qof kasta Soomaaliya wuxuu ku yimaadaa dastuur wuxuuna ku bixi karaa madaxweynaha dastuur hadduu madaxweynaha qaranka dastuurka ilaalin waayo isagana cid ilaalinaysa madaxweynenimadiisa iyo sharaftiisa male lixdan iyo shan maalmood ayaa lifti u hartay sida sharciga ah waxaan leenahay mudane madaxweyne naga xisho dalka ka xisho dadka ka xisho madaxadayga iyo dictatorshipnimada iska daa dalka doorasho xor iyo xalaal ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 February dadanimo gaar uu leeyahay iyo shakhsiyad gaar uu leeyahay iyo raganimo uu raga dheer yahay kuma soo bixin wuxuu ku soo baxay nasiib Allah wuxuuna nagu hogaaminayaa afartii sano oo qalaashay iyo dastuurka oo ogol yahay wali waxaan leenahay mudane madaxweyne after 65 days ma dhahayna mudane madaxweynihii hore Soomaaliya ayaan dhahayna madaxweynihii isaga ka horeeyay dalkan doorasho ka qabtay isagoo zero ka soo bilaabay maamul goboleedyo soo sameeyay laba golo baarlamaan oo weligeed Soomaaliya baarlamaan sarma yeelan uu soo sameeyay ka bacdina doorasho ka qabtay codka laga badiyay si xor iyo xalaal ah labadii madaxweyne qaran mudane Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud gacmaha ugu taagan dalkii ugu wareegay dadka Muqdisho ku nool iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyagoo u maleynaya inuu wax qaban doono wax badan ayay u banaan bixin waana lagu hoggoob waana ka helisiyaad lamba 3 dalka waxaa lagu wareejiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 5 maamul goboleed iyo caasimadda Soomaaliya 5 maamul goboleed xagad ku sheegtaan yalcanu bacduhum bacda midka kale la dagaalsiya la hayo ma jiro runta markii la isu sheega caasimadda heerka ay marayso iyo jidadkeedii inay 4 sano daanta Gaziya daanta galbeed u qaybsantaa shacabkeedii waa la isku jiray waxay isku jiraan ilaa iyaga la isu ilaamiya dhaxdooda inay isdilaan oo murjifuuna la isugu sheego ma dhacayso dalka la isku maamullo gobollo muhiim ah ayaa jira sida Puntland iyo Jubaland waxaa moodaa madaxweynaha isaga inuu ku qanacsaneen inuu madaxweyne qaranka ahaado saaxiibkeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa fiicnaan lahayd inuu Jubaland isu soo sharaxo sababtoo uu ka dhamaan lahayd haddii Jubaland anaga Axmed Maxamed Islaam u naqaana inuu madaxweyne ka yahay haddii ku filaan weyday jamhuuriyaddii Soomaaliya uu ka dhamaan lahayd maamul goboleedyadii isagu waa inuu maamul goboleedyada madaxweyne ka noqdaa madaxweynena ka noqdaa isheeg muxuu ahaa jamhuuriyaddii wuxuu rabaa jamhuuriyaddii Soomaaliya inuu ku aamino isna ma rabo hal qof oo Soomaaliya inuu aamino no cidiyaysa madaxweyne ciyaalka xafiisyadaada joog oo ku celcelina maalin kasta baaqan tiraani madaxweyne waxaad u baahan tahay siyaasaddu waxay kaaga baahan tahay wax la yiraahdo political siyaasaddu waxa u baahan tahay human capital adaa zero iska dhigo qofna dhisan waaya afartii sano dadku ugu liitaa dabaacuhu heer waxay ku gaarsiisay wiilkii xafiiskaaga jooga 4 sano ka bacda aad tiraahdo guddiga doorashooyinku kamid yahay inaad guddiga doorashooyinka ka soo magacawdo xafiiska nabad sugidda bilaa calayk inaad ka soo magacawdo xafiiska ra'iisul wasaaraha inaad soo caruursato CDD kuugu handariyeynaysa ama guulwadayaashu walaha bulshada oo tiraahdo dalkay doorasho qabanaya no ma aaminayno dalkeena kuma aamini karo kuwaas madaxweyne afwan doorashada qabo dad u qalmakeen Soomaali waa 20 milyan ka xulo dad doorashada ka qabta dalkan wiilasha jeebkaaga ku jira ee adigu sida aad rabto ugu talinayso kuma aamini karo dalkan qaada dhacaya ee meelaha xalistaha maraya waxaan rabnaa cid samata bixisa group gaarana dalkan gaar u male yaan la in qaldin dhalinyaro ogaada dalkan dastuur baa lagu hogaamin karaa cid dastuurka ka weyn ma jiro madaxweynaha qaranka dastuurku loogu yahay madaxweyne waana kale wuxuu madaxweyne ku noqday waa idinko kale wuxuu madaxweyne ku noqday waa dastuurka hadduu dastuurka ilaalin waayo isna madaxweyne noqon maayo hadda waxaan taasoo ku soo sheegayaa oo dhammaan u dirayaa maamul goboleedyada iyo madaxweynaha qaranka madaxweyne odayga reerka ugu weyn waa adiga doorashada cid ay ka socon laadahayna waa adiga cidda rabta inuu wax xaraana soo aruursadana waa adiga dibtuna waa adiga afwan dibta jooji dalku Muqdisho waxaan leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma jirto Soomaaliya tuulo ku taal weli inaba ka dhig
أحمد كوكو تاجي كسماعي 6 سنة ولا بكرة وده صومالي يقولوا لي مقالة دي مقصلة دي بدو تنحكي له هو يمكن مالي مرة عليه يعني وحان قبع وحبيان لو قايلين المشرحين الحق بيقول لي الدستورية إنه دور شعب صلان حق بيقول لي عدة يجي حتى حادثة تصالح يسووا هذيك يقول بين مركي وفسيوني محمد حسن ولها دورشها فوق بهنا مايا أنا حلانا رباونا حلال هي الله أقولها وقصة بحيسوا صد العذرانين إلهي لا سوسي وحكمت الجمهور عليه طب إلهي أقول طبعا إلهي يسأل وقبل لي أبوك صورة إلهي ولي ولوي هاي دكتور صورة كذا دكتور نبي كل جوجا من حوينها أيوة شيء جيان إلهي هذا دور شقة بطو واتو شريف كبحي هذا دور شقة بطو واتو حسن كبحي دور شقة واتو كبحي هذا كل شيء دور شقة تلقى ويكدع حلالين كوا كنا ترتمي يدي جودا كامل يلين حسن يا شريف يا أخويا كأطفال يا دي جودا حلال يا عيد كايلي سمالي وهيك يشوف يقول أنت تفضل ولا بس كصامري ملح كل وحن عطسنيا دستورك دلك عيد كسر رئيس ملح مدحوينها وحكوية هاي ودلك كوه بامية ودستور هدو دستور كبال مرة إتكريه لي سمرة وجبهة كمية لين أنا قريب هاي صدق سنة قال دعين صدق سنة أيام دولة مثل هذين كما سهل خير الله سي الشريف مالكين خير الله سي حسن مالكين لما كان ملاح لما عمل قبلين مالكين وجميعها متيلنا واشتهي هذا كيلين فما جاي جروب كيسي فهد ياسين يقولين جروب كان اسمه صاحب فيلا ولديكلي مكيلين هاي دلك الدنيا وردلك إنك ملهين بيا وعدكم ملهين بيا واركيلين مين دلك عن عيني بابيس إنت أكبرين من مقدسين مدحوينه kasoo saar ciidanka Jubbaland reer Jubbaland u fasax inay doorasho soo qabtaan qof kasta dalka xildhibaanadiisa waa 329 xildhibaan deegaan doorasho leeyihiin deegaan doorashaduna waxay hoos tagaan maamul goboleedyada maamul goboleed kasta xor ha looga dhigo inuu soo saaro xildhibaanadiisa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadduu raganimo isku hayo markii muqdisho maadaan hawkan bin karay نقول لما جوج يصير حب يا هندبات نقول لما جوج أيو أنيقا أيام ده هاي أنا كيه دون دلك يدك بدباد وباهي هاي إنك بدبادي سلني كهرباء راليقا هذا يجري دلك بدبادي يا إنت الحكي لنا الله ما سنتي thank you عبد الله الشيخ عبد الرحمن أبو ماسي هاي anigu ma aaminsani in loo hanjabo farmaajo in la yiraahdo dalku wuu burburaya taa waa ka baraarugsannahay farmaajo hadduu diido amarka kani waxaan aaminsanahay ka dhalinyaro ahaan inta baxna madaxtooyada tagnaan soo qaban doono dalka iyagu isu burburayno reerkiisa asagu maxaa leeyahay buffalo I don't know ay jiraan annagu reerahayaagu xamaray joogaan mana doonayno inay qaxaan dalkeenana inuu burburo ma doonayno كأركت أهان مركا وحن آمن سنة هاي 1991 دليلة ما أنت شوكتي إنه إنا two different كلامنا ما أنت الحقيقة قاعدين دلكو إنه بربرة دليلة لكن أنا ما قاعد ضمن ما أنت إنه دلكو بربرة من اللي إني كانوا أرجع دلك إنه بربرون يو قارتان سواق بنا إنه نسك ساري ضمن إن شاء الله محمد عبد الله فرماج سيد أكتين مالنتو إيمانا يي وبفيلو وكي إيمانا يي وحمر إيمانا يي هنتي مودن عيدا مودن قرب مودن ضدك أسوحر مودن وحكلا مودن isagoo shakhsiga oo kaligiisu inoo yimid dad Soomaaliyeed xilibaan inoo ahaya kursigii u doortay habeenkaas maanta waxaan qatar ugu jirnaa inaan dagaal sukeeyo dib ugu noqono isagaana sabab u ah waxaan rabnaa marka ummadda Soomaaliyeed inaan u sheegno aqooyankii gobolka Banaadir anagoo ah annagu cuqdad qabiil ma qabno annagu uma dagaalamayna dan nin gooniya annagu uma dagaalamayna dan cid kale annagu waxaan doonaynaa dastuurka in la ilaaliyo dimuqraadiyadana dib loogu soo noqdo madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa hadduu dastuurka iska tuuro inaan laga yeeli doonin ha ogaado oo ha kaco ha ku soo jiifto maanta taariikhdu waa 2 December
si aad la socotaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa u dhiman 65 maalmood mar labaadaan ku celinaa madaxweyne 65taas maalmood waxaad ku sharfan tahay dastuurka ayaa ku siiyey 65 maalmood 65 maalmood hadday dhammaato doorasho wada ogolana aad keeni weydo muwaadin dadka ka tirsanaa tahay awood aad dadka aad dheeraan doonta ma jiri doonto taasoo fulinimada ee dadka dhadhamada kula jooga madaxweynaha ay u sheegayaan ay leeyihiin haddaad doorasho qabato waa tuu shariif ku baxay haddaad doorasho qabato waa tuu xasan ku baxay doorashada waad ku baxee haddaan kuu sheegaa doorashada dalka way ka dhaceen cidda laga kuma haysato madaxweynaha xalaalayni kuwa kula tartamaya dhiigooda kaamana yeelayno xasan iyo shariif iyo aqooyaha ka ag fadhiya dhiigoodu xalaal yahay cid kaa yeelaysa male waa raggii kursiga kugu wareejiyey ciddaad rabto dabada basbaas ka soo mari madaxtooyada kula joog lagaama yeelaayo annagoo balaabaxaynoo silmiya oo gacmo aysaysanaan madaxtooyada aadaynaa farmaajo ama soo saara ama annagaa soo saaraynaa leena war cid xabadridaysa ma jirto cid qaxaysana ma jirto maxaanu qaxaynaa mabu baanin be inteena haddaan baxnay madaxtooyada aadna naga baxaan ku filan meesha farmaajo sharci iyo dastuur uu ku joogaa maandhayda uu ku joogaa warkeena dhegayso allah hadduu yahay oo aad muslim tahay oo aad ummadda taqaano farmaajo dalka hanaga burburin farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo warnima magacaaga waa baran siifiyadana waa hesha waana lagu aqoonsaday bufaaladaadii u naqa ku dhihi mayna xataa waxaan diyaar u nahay inaan lagu qabsan 40 sana dhibkan noo geysatay odayaasha ninka madaxweynaha waxaa leenaha ninka odagaa maamuusa meel dejiyaan leenaha madaxweynaha ma aha maanta inaan mucaaradno inaan sagxadda u taagana sababtoo ay shalay afkii aan ku ammaanayno waa midkaa maantaan uga dacwoonayno laakiin madaxweynaha waxaa ugu baaqaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba doorasho xalaala inuu waddanka ka qabto ma aqbalayno in dhallinyarada soomaaliyeed dad baasaboore ajanabi wata oo beri dalkan markuu dagaal ka qarxo ka duulaya in dhallinyarada soomaaliyeed mugdi ay geliyaan mustaqbalkooda ma aqbalayno waan diidnay mucaarad iyo muxaafad shalay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo intaan la dooran ka hor wuxuu ku jiray midowgii musharaxiinta ayuu ka mid ahaa waa la doortay labadii nin ee garab istaagnaa waxay ahaayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne sheekh shariif waa loo sacabtumay waa u banaanbaxnay waan taageernay maanta dalka halka uu gaarsiiyey wixii wanaagsanna waan taageeraynaa laakiin xeerka maanta uu gaarsiiyey wax la ogolaan karayo ma ahan